marka laga hadlayo quraanka Allah wuxuu ku sheegay fi suuratu Rum ayada ku jirtay min aayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma liqaumin yatafakkarun ay macnaheedu tahay aayadka Ilaahay waaweyn sida cirarka iyo dhulka kale Ilaahay wuxuu ku daray inuu inaga sameeyay azwajan lamaane lab iyo didig litaskunu ilayha si la isugu xasilo si qof walbaaba raaxa u helo qalbiga jirka iyo meel kala gedisan litaskunu ilayha waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma dhaxdiinana Ilaahay waxaan dhigay buuri mawaddatan wa rahma kalgacal jacayl iyo naxariis inta iyadoo yar marka la guursado waxa weeyaan yaraanta markay leenahay waa wax weeyaan inantii ka yar 20 jir caafimaadkuna wuxuu taageeraa guurku inuu dhaco 20 sano wixii ka badan hadii ay hadaba dhacdo nasiib daro inan 20 sano ka yar inay guursato dhibaatada koowaad ee qabsanaysa waxa weeyaan inantii maskaxiyan diyaar boo ma aha inay guurkan iyo hawlihiisa iyo mas'uuliyadeeda because waxa weeyaan iyadaaba mas'uul laga aha waayo waqtigaas da'daas aynu sheegayno waxa weeyaan waa da'dii iskuulka haday ugu sokayso waa da'ay high school ama secondary-ga ay ku jirtay inantu waxa maskaxda diyaar uma aha mas'uuliyadda balaaran ee guurku leeyahay ee diinta islaamka ay ka hadashay inantii jismiyan diyaar uma aha inay hooyo noqoto way jirkeedu wuxuu ku jiraa waqtigii korriinka waxa weeyaan miskaheegii unugeedeedii taranka dhamaantood waxay ku jiraan waqtiga ay korayeen hormoonadeedii diyaar uma aha inay ilmo qaado oo hooyo noqoto iyadoo ka yar maxay da'dii loogu tala galay diiniyan iyo caafimaadba labadaba inay hooyo ku noqoto talbaad waxa weeyaan waqtigaasi inanta ay yar tahay caafimaadka taranka aqoon uma laha taasoo keenaysa inay haday hooyaba noqoto inay la xidhiidho goobaha caafimaadka oo maxay imanaya khajalaad ba imanaysa inantiyo yar oo 15 16 17 oo uur leh inay goobaha caafimaadka ay tagto waxay ku keenaysaa waxa la yiraahdo khajalaad oo inay u bandhigeen dhibaatadeeda waday tahay walaca haday tahay markay xaamilada ay noqoto ilmuhu weynaado ta u daran waxay imanaysaa waqtiga foosha waqtigii foosha waxa weeyaan maha inantan yar yaraanta ku guursatay jirkeegii diyaar uma aha dhalmadii halkii uu ilmuhu soo maray Ilaahay ugu tala galay taasi keenaysa miskihiin inay diyaar u ahayn taasi keenaysa inay maskaxdeedii emotionally inay diyaar u ahayn ilmahan uu imaado hadaba halka waxa imaada dhibaatooyin fara badan oo ka mid noqonayso inuu ilmihii baqtiyo inay inantii xubnaheega taranka ay dhibaato soo gaadho sida waxyaabaha loo yaqaan isku furanka tasdaxaad waxa imanaysa hadaba ilmihii hadii si walba ku dhashay uu badbaado inantiina yar tahay aqoon uma laha habkii loo korinayay ilmaha habkii haduu caafimaadkiisu hoos u dhaco ay ku garanaysa calaamadaha waxa sahaya ilmihii dadna dhakhtar hebel u geey ama sida uu dawee ma garanayso taasina waxay keentaa in dhimashada caruurta yaraanta ku dhimata ay aad u badan tahay hooyadu haday ka yar tahay 20 sano hooyadii ilmaha dhashay 20 sano ay ka yar tahay labada qof ee dhalinyarta markay iskuursadaan waxa problem kaga yimaada xagga caafimaadka haday problemkaas ku yimaadana ay dedejiso inuu yimaado xagga furninka marka ugu horeysa labada qof ee yar horta waxa wanaagsan in early marriage la sameeyo noloshu saasi ku wanaagsan tahay xadiis baa la man lam yastad minkum falyatazawaj early marriage waxa wanaagsan laakiin problemka soo wajaha waxa kamid ah qofkii markii labadii iskuursadaan labadii dhalinyarta ee yaryara markii iskuursadaan waxa soo mara problem ah markay inantii uurka qaado ama ay uur yeelato waxa yeeshaan xanuunada badan ayna markeedii hore la qabsan iyadoo aan garanayn in xanuunadaas carqalad ku keeni karaan nolosheedii iyo uurkeedii marka waxa dhici karta inay inantaasu social ahaan iyo maskaxaanba inay dareento xanuun badan ilaa ay ku yimaadaan xanuunada badan ee la dhaho early pregnancy-ga aakhirka waxa yeelanaysaa inantaasu marka dambe inay uurkiiba ay karaahayeysato oo ay nacdo markii caafimaadkeedii uu soo wajaho oo inantii nafaqa darro ay ku dhacdo in badan ay tabcaan noqoto aakhirka waxay gelaysaaba inay depression karto ayaa dhici karta oo ay nacdo uurkiiba dhibaatada hooyadu aad buu far badan tahay yaraanta ku guursata
oo jismiyan oo caqliyan oo aqoontii ay hoos imanayso social ahaana labadii qof markay isguursadaan ay dhalinyar ahaan isku guursadaan in badan ma soo jawaar dad dhalinyaro ah iskuma dulqaadanayaan haddayna isku dulqaadanna waxa iman doona inay early divorce imaado ay kala tagaan